dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dabayaaqadkii sanadkii tagay 2015 sheegtay in bilowgii sanadkan 2016 ay bilaabayso howlaha maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo waqtigaasi loolankiisa u socday. horaantii sanadkani 2016 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si cad magaalada Jowhar ugu sheegay inuu u furayo shirka maamul sameynta labada gobol waxa xilligaasi magaalada ku sugnaa erga kala matalaysa labada gobol. muddo kooban waxa uu shirka u socdaba waxa hakad ku yimid shirkaasi markii la gaaray qaybtii xulista ergada labada gobol. taasina waxay keentay in isjiid dheer kadib ergada Hiiraan ay barqo dib ugu laabtaan gobolkii markoodii hore ka yimaadeen. isku dayo iyo isku soo dhawaanshiyo labada garab ee ka kala tagay shirka isla markaana ka kala matalaya labada gobol waa Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa socday inkastoo muddo kadib dowladda ay ku guul dareysatay in ay dib Jowhar ugu soo celiso qaybo kamid ah iyadoo qaybo kamid ah dadkaasi ay keentay shirkana dib uu halkaas ugu bilowday. odayaashii la soo celiyay iyo waliba kuwii ka hor yimid dib ugu laabashadii Jowhar ayaa ka ashtakooday habmaamuleedka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya ay wax ugu qaybinayso ergada labada gobol sida ay sheegeen. xubnaha uu kamid yahay ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Rooblo ugaaska beeraha diga gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne kulan laba jeer fashil ku ilaaday la qaatay wakiilka goboleedka Bariga Afrika IGAD inkastoo ay sheegeen odayaasha in la isku fahmi waayay shirkaasi. qaramada midoobay iyo beesha caalamka ayaa ka marqaati aamusan iyadoona doorkoodii ay ku dhaqdhaqaaqayso goboleedka IGAD inkastoo yana talada loo dhiibay kolkii dowladda ay sheegtay inay gacanta ka taagtay socodsiinta shirka maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. dadka reer Hiiraan ayaa indhaha ku haya halka ay ku biirsho doonto arintan maadaama dhanka gobolka Shabeellaha Dhexe iyana ay la jaha wareersan yihiin xaalkaani iyo halka ay kaga gudboon tahay in xilligan doonta socoto ay ka raacaan. siyaasiyiinta ayaa arintan ku tilmaamaya wajibadantii siyaasadeed ee xilliyada qaarkood lagu arki jiray qaar kamid ah xilliyada Soomaaliya kala guurka waqtiyada la gaaro ama la marayo xilliyada kala guurka dowladuhu waqtigooda si ilaaniyo. odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan qaarkood ayaa doonaya in gobolkaasi loo qaybiyo laba gobol kadibna hal maamul loo sameeyo. waxa hubanti ah in arintaasi isugu soo ururayso jahawareerka maamul sameynta jagada inay salow tahay. goboleedka IGAD ayaa dabayaaqadkii sanadkii taga la sheegay in ay isku dayday xeer jajab lagu wajahayo maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyadoona sabab looga dhigayo in uu yar yahay waqtiga dhisida dowladda maadaama doorasho iyo abaabul dowladeed dalka Soomaaliya laga galiyo. tani waa khibradihii laga bartay maamul sameynta dowlad goboleedyada ka horeeyay gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo bulshada ka soo jeeda goboladaasi laga dhaadhicinayo in waqtiga doorashada dalka ay tahay mid dhow. waxa dhiman ay tahay gudagelista arrimaha doorasho iyo sixidda arrimaha dastuuriga ee ku aadan doorashada Soomaaliya. arrimaha la yaabka leh ee laga bartay maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxa kamid ah shirarka madasha wada tashiga qaran ee ugu dambeeyay dalka ka dhacay in xubno matalaad u ah goboladaasi ay ku sugnaayeen si la mid ah ciyaarihii dowlad goboleedyada dalka ee sanadkani lagu martigeliyay magaalada Muqdisho. waxa ka dhex muuqanaya xul ku matalaya magaca Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe taasi oo muujinaya in ay kamid yihiin maamul goboleedyada dalka jira hase yeeshee dhanka siyaasadda iyo maamul sameynta uu ka jiro sadbursi siyaasadeed. Soomaalida oo ah dad xigmado iyo murti fara badan oo alla ku manaysay isdhaafsigeeda waxa ka soo qaadan karnaa in mahmaayo fara badan ay leeyihiin. mahmaadan oo ah dabaalato biyo hoosteeda ay iska arkaan oo macnaheedu yahay labadii isku hool ah in aysan jirin hab ay ku kala gambadaan. guwaxa magaalada ee arrimaha maamul sameynta ayaa la sheegay in IGAD ay doonayso in madaxweynaha la siiyo gobolka Hiiraan halka madaxweyne ku xigeenkana la siinayo gobolka Shabeellaha Dhexe inkastoo aysan jirin war qoraal ama oraha oo IGAD arintaasi ku cadeysay. waagii baryaba war buu la soo baxa waxa Muqdisho oo ah caasimada Soomaaliya ka soconaya hadal heenta iyo halka ay ku dambeyn doonto howlahan maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe inkastoo magaalada Muqdisho ka furmayo shirkii ugu dambeeyay ee madasha wada tashiga qaran. dowladda inkastoo horey ay ugu jaangoysay labadan gobol awood qaybsiga ah in magaalada Jowhar laga dhigo halka shirka lagu martigelinayo halka caasimada laga dhigo magaalada Buloburdo oo dhacda gobolka Hiiraan inkastoo aanan laga hordhici karin mawjadaha siyaasadeed ee maamul sameynta maadaama daqiiqad waliba uu xaalka isbedeli karo sida aynu ku aragnay kulamada qaarkood. haddana soo lama dhihi karo gunaanadkii jahawareerka maamul sameynta jagada sal u ah.